kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo kala furfuraysa xubnaha axsaabta mucaaradka ku ah siyaasadeeda durbaba xubin weyn ayaa ka baxday mid ka mid ah axsaabta ugu waaweyn dalka dhismaha jidka xamar iyo afgooy oo mashruuc lacag oo kale lagu dul abuurtay iyo arrintan oo lugaha la galayso ajaanib shisheeye ah oo gudaha dalka ka howlgala hub fara badan iyo gaadiid lagu raas joogay oo lagu qabtay magaala madaxda ganacsiga Puntland ee Boosaaso safiirka Imaaraadka oo muddo kadib maanta dib loogu arkay saaxadda siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku qulqulaya xarumaha wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena inta aan gudagelin ka hor faahfaahinta wararkeena daawada waxaa naga xasuusina fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay halkaan aan kusoo gudbino aan ku bilowno faahfaahinta warkeena xisbiga himilo qaran ayaa laga saaray xildhibaankii ka been sheegay ciidamada Itoobiya ee Dhuusamareeb xisbiga himilo qaran ayaa ku dhawaaqay in xubinnimadii xisbiga laga joojiyay xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ah xoghayihii guud ee xisbiga qoraal kooban oo la soo dhigay barta Facebook ee xisbiga himilo qaran ayaa lagu yiri kulan maanta ay yeesheen golaha fulinta ee xisbiga himilo qaran ayaa ka joojiyay xubinnimadii xisbiga xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ah xoghayihii guud ee xisbiga himilo qaran sida uu qabo xeerka xisbiga go'aankan Cabdixakiin xisbiga looga saaray ayaa yimid maalmo kadib markii qoraal uu 29 November soo dhigay boggiisa Facebook ugu been sheegay xaaladda Dhuusamareeb iyo ciidamadii Itoobiyaanka ah ee filla Soomaaliya ay geysay magaalada qoraalkaas ayuu ku yiri xildhibaan Cabdixakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug la wadaago inaanay waxba ka jirin wararka lagu sheegay in Dhuusamareeb la geeyay ciidamo Itoobiyaan ah oo aan AMISOM ka tirsanayn waxaa jira ciidamo ka socda Djibouti iyo Itoobiya oo Dhuusamareeb ku sugan muddo aan ka yarayn 3 bilood hase yeeshee ciidamadaasi waxa ay ka wada tirsan yihiin AMISOM qoraalka xildhibaanka ayaa aad uga yaabiyay bulshada Dhuusamareeb oo indhahoodii ku arkay ciidamada Itoobiyaanka ah ee la geeyay Dhuusamareeb iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wararka ayaa sheegaya in xildhibaan Cabdixakiin uu taageersan yahay musharaxa ay wadato dowladda ee qorshuhu yahay in ciidamada Itoobiyaanka ah iyo filla Soomaaliya ay si sharci darro ah ugu gacan geliyaan madaxtinimada Galmudug taasina ay ku qasabtay inuu xaqiiqada ka been sheego qaybihii hore ee jariirada media ay daawanaysaan safiirka Imaaraadka oo muddo kadib ka maqnaa saaxadda siyaasadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay lagu arkay Muqdisho safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Axmed Al-Thaman Al-Hamadi ayaa muddo kadib dib loogu arkay saaxadda siyaasadda Soomaaliya oo ka maqnaa Maxamed Axmed ayaa ka soo muuqday munaasabadii xariga looga jarayay machadka diblomaasiyadda Soomaaliya oo dowladda Qatar ay maalgelisay dib u dayactirkiisa machadkan ayaa lagu tababari doonaa diblomaasiyiinta Soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Hamza Hashim waxaana yaab lahaa in safiirka Imaaraadka uu ka qayb galo mashruuc ay wadato Qatar safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed ayaa ka wareegtay Muqdisho isla markaasna saldhigtay magaalada Nairobi wixii ka dambeeyay bishii Abriil sanadkii 2018 markaas oo xiriirka labada dal uu aad u xumaaday xiriirka labadii dal oo markii hore ku xumaaday xiisadda Khaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka inay xiriirka u jarto Qatar ayaa ka sii daray markii dowladda Soomaaliya ay 8 Abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo Imaaraadku ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha Muqdisho toddobaad kadib 15 Abriil sanadkii 2018 dowladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisay
tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa lacagta ay qabsatay dowladda Soomaaliya. tan iyo muddadaas ma jirin wax xiriir muuqda ah oo ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Jariiradda Media ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. hub fara badan iyo gaadiid lagu raad joogay ayaa lagu qabtay xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso. ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa howlgal ballaaran ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. waxa ay ku qabteen hub dhawaanahan la hadal hayay. howlgallada oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxa ay ciidanka ka fuliyeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaaladaas, iyadoo uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka. taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo hogaaminayay baaritaanadaas ayaa ka warbixiyay. waxa uuna sheegay inay gacanta ku soo dhigeen hub sharci darro ah iyo dadkii watay, kuwaas oo loo taxaabay xabsiga. sidoo kale taliyaha ayaa tilmaamay inay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo gaadiid ay in muddo ah ku raad joogeen ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland. ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari in howlgalladu ujeedkoodu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga, isagoo ciidanka booliiska uga digay in ay hubka ka dhex qaataan gudaha magaalada iyagoo aan ku jirin shaqo. dhawaanahan ciidamada Puntland ayaa xoojiyay baaritaanadoodii ay ka wadaan Boosaaso si loogu hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada ee ka dhaca magaaladaas. qaybihii dambe ee Jariiradda Media ayaa haatan ku sii siqeynaa. dhismaha jidka Xamar iyo Afgooye ayaa la sheegayaa in mashruuc lacag oo kale lagu dul abuurtay, taas oo ay ka dambeyso shirkad la sheegay inay la wareegtay qandaraaska dhismaha wadadaas. weli waxaa socdo dhismaha jidka weyn ee isku xiriiriyo magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo hadda marayo meel dhexe, inkastoo aan laami la saarin oo weli diyaarin lagu wado. hase yeeshee waxaa durbaba soo shaac baxday dhibaato lagu hayo goobaha ganacsiga iyo guryaha saaran laamiga ee ku yaala jidka dhismaha ka socdo. jidkaas ayaa waxaa la saaray marshabiyood dheeri ah si aysan gawaaridu u kormarin, waxayna taas keentay inay saameyn ku yeelato goobaha ganacsiga iyo guryaha. shirkadda la siiyey qandaraaska mashruuca jidkaas ayaa bilowday inay lacaga dheeri ah ka qaadato dadka leh guryaha saaran laamiga si looga leexiyo marshabiyoodka, isla markaasna loogu sameeyo meel ay geli karaan gawaarida iyo baakinka. shirkadda la siiyey mashruuca dhismaha laamigaas ayaa dadka guryaha leh ka qaadanayso lacaga $10,000 ah. ciddii aan bixin waxaa guriga hortiisa la marinayaa marshabiyoodka, taasoo saameyn ku yeelanayso ganacsiga iyo dadka caadiga ah ee guryaha leh. qaar ka tirsan dadka leh guryahaas oo la soo xiriiray Jariiradda Media ayaa sheegay in arrintan dhibaato weyn ku hayso, islamarkaasna aysan awoodin inay lacagtaas bixiyaan. sida sharciga ah, marka laamiyada la dhisayo waxaa la rabaa in ganacsiyada iyo guryaha iridooda loo sameeyo meel ay baabuurta u geli karaan. shirkadda dhismaha jidkan Muqdisho iyo Afgooye waxay nagu xujaysay in aan lacago dheeri ah bixinno, midaasna loogu sameeyo. ciddii aan bixinna looma sameynayo, ayuu yidhi mid ka mid ah dadka guryaha ku leh halkaas ee lacagta laluushka ah la weydiiyey. mashruuca dhismaha jidka Afgooye iyo Muqdisho ayaa waxaa la siiyey shirkaddu, waxaana maalgelinta bixinayso dowladda Qatar oo saaxiib dhow la ah filla Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay la dagaalami doonto musuqmaasuqa, waxaana hadda muuqata inaysan jirin tallaabo lagu qaadayo shirkaddan oo dhibaato xoog leh ku hayso dadka leh guryaha saaran laamiga jidka Muqdisho iyo Afgooye. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen janaalka Jariiradda Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar janaalkeena
si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya oo aan halkan ku soo gudbin doono.